waa suge iyo warsame socdaalkii soddonka maalmood waa buug uu qoray allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare sannadihii 1980-aadkii buugga waxaa soo saaray akademiyadii cilmiga iyo fanka Soomaaliya waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah Farxaan Maxamed Jimcaale laakiin inta aynan bilaabin buugga haddaan si kooban u dulmaro waxa uu ka hadlayaa dhaqan maalmeedka Soomaaliyeed hiddaha iyo nolosha isagoo si gaara u eegaya isku horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka qoraaga buuggani wuxuu si caqli gal ugu dheehan tahay uu u isticmaalay sugaan inteeda badan ay tiriyaan abwaanno caan oo Soomaaliyeed waxaana hadba mushkiladda hortaalla u soo daliishanaya ama ku xasuusanaya labada oday ee qisadu ay ku socoto waa suge iyo warsame qaybtii koowaad waa suge iyo warsame socdaalkii soddonka maalmood sidan ayayna ku bilaabanaysaa waa suge waranside waa nin caan ah kuna nool degmada Jowhar waa 60 jir Itaal u dhashay waxa lixaadda u dheer waa dadka ayan da'du dhabankooda ka muuqan waa suge waa culimo la jir aftahana wuxuuna ku soo barbaaray lo iyo beer kuwaasoo ay nolosha qoyskiisuba ay ku tiirsan yihiin wuxuu degan yahay meel gelin socod u jirta magaalada Jowhar aad ayaana looga yaqaan loogana tixgeliyaa gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu ku nool yahay waa suge wuxuu goostay inuu socdaal gaaban uu ku gaaro xamar si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xiriira baahida qoyskiisa waa barqo la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa hawl maalmeedkii beeraha waa suge maanta ayuu baxayaa wuxuu la dardaarmayaa oo ilinka la taagan yahay afadiisii muslimo halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxa ku ciyaaraya da'goyskii muslimo oo 5 jir ah wiilka dhankiisa bidixeed waxa ku xiran weylo ay lo'i ka sooftay yeertooda isdaba joogga ahna ay ismaqli la'yihiin waa suge iyo afadiisa muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaambo ay beerta u soo qaadatay waxay si xiisa leh u dhagaysanaysaa waa suge oo kala ballamaya reerka muslimo waxay iyaduna markeeda ku adkaysanaysaa duqa fariimo u gaara baahideeda dumar mar haddii odaygii uu magaalo tegayo duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaya ayaa waxaa yimid rag Jowhar ku socda oo ay waa suge ballansanaayeen in ay isla sii jid maraan halkaas ayayna iska raaceen wixii ay socdaanba oo socdaan kushkush taraaraan keliyana ay ka tallaabaanba goor duhura dabayaaqadiis ayay raggii waxa ay tageen magaalada Jowhar kadib markuu odayaashii la shaahcabay waa suge wuxuu si toos u aaday suuqa baabuurta wuxuu ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday nasiib wanaagse in door ah markii uu taagnaa waxa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda dhowr qof ayaa halkaa uga degay si sahlan ayuuna waa suge kursi uga helay isla baabuurka uu waa suge soo raacay waxa la socday nin caan ah oo la yiraahdo warsame hawl kana mid ah xoolo dhaqatada gobolka Mudug warsame waxa isaguna uu soo danaystay isla magaalada xamar waa suge iyo warsame maqaadiir eebe ayaa ku kulmisay baabuur gudihii waa laba oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waaya aragnimada kale intaba wuxuu mid waliba rumaysan yahay in uusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta Soomaalida wax kale yeelkeeda dadka kale ee baabuurka saaranna waxay u badan yihiin rag dhexdhexaad ah guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel reer magaalka baabuurka la socdaa way yar yihiin dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah muuqaalkiisuna uu ka duwan yahay inta kale wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar tolmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka waxaana ku yaal timo aan weli maqasta la barin wiilka waxa magaciisa la yiraahdaa dhaan raac waana inan meel weyn ka gaaray ku dayashada xaragada reer galbeedka waqtigu waa isguraya goor casar fooda lala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada Jowhar waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay shufeerka baabuurka wadaahi waa nin waayeel ah waxa caado u ah in markasta oo uu baabuurku dhaqaaqayo
uu dadka saaran ku yidhaahdo faataxada akhriya. dadkoo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faataxada la akhriyey intuusan shufeerka hadlin. faataxadaa wadajirka loo akhristay kama uusan qayb qaadan dhaanraac. wuxuu ku howlanaa oo uu ku shanlaysanayay muraayadda baabuurka. in yar kadib markii sabada jawhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaal wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiira. waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo oo ay bar iyo beerba mahadiyeen. galley, masago, sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaalan. dadkii baabuurka saaraa badidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen iyagoo il iyo laab kulansan ku daawanaya beeraha. waa suge oo fasalkaas beertiisu xumayd ayaa aad ugu dhaygagay beerihii, wuxuuna intuu isha la raacay gallayda iyo masagada qalbiga uga heesay. beernimaan falin bawd u dhigin weyn bahal celin kara, biyo ugu di'in dow barwaaqo ah, badar uga bixin bakaar lagu shubo, baahi weligii waa u bilan yahay. markii beerihii laga baxay oo cabbaar la socday ayaa shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka si isdaba joog ahna waxa uu u yeershay hoonka. dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay. qof waliba wuxuu is yidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey. waxay arkeen jidkii oo ay lo iyo geel fara badani ay ku gudban yihiin. waxaa la soo galay meel bulsho xoolo dhaqata ah ay naq ka degtay. dhulku waa doog iyo biyo dhex yaal. midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo ilaahay dalsankaas ku beeray. laama cargeeyey oo caleemo ku gaafan tahay. ubaxna guudka ku sita ayuu geed waliba la liicayaa. ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isu maaweelinayaan ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka. qaarkoodna meelo fogfog ayay koox ugu sheekaysanayaan. warsame ayaa markuu arkay geelii oo iskugu jira irmaan iyo horweyn, aaran iyo galoof iscelin waaye markaasuu ku dhuftay hees geela isagoo ku luuqaynaya oo yidhi: geelnimaan dhaqan, goodir xalay dhalay, gaawaha u culan, gaarka kala gelin, naaso godol qaba, gaagaxna u helin, gurdankood maqal, gadoon kala dhihin, gaatan ula socon, geed qabow tegin, waa gobyaa yidhi. markuu warsame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo. warsame way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad. maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan. isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid a gabaygii cumar isteeliya ee ahaa: meeshii awow iyo awow xaawe iyo aadan, arligeenna xoolahani way isku isiraayeene, adduunsa lama sinna geel horaa laysu aaminaye, waa waxay abaartuu dhaqdeen odayadeenniiye, haddii oofaweynow ratiga ayra lagu qooqsho, aminkhayrka galabtii hadduu aaran soo didiyo, usha kol iyo 2 jeer haddaad yaro ogaysiiso, umalkii uu qabay doob hadduu awda kaga siiyo, indhalaliska miciduu sidii aar u raminaayo, kolna waxaan adduun kala lahayn aabbisocodkaasi. si weyn ayuu dadkii gabaygaasi ugu riyaaqay. qaarkoodna waxayba wadajir ugu luuqayeen beydka ugu dambeeya oo ah: kolna waxaan adduun kala lahayn aabbisocodkaasi. intaa uu warsame gabayga tirinayay, dadkuna sida xiisaha leh ugu jiibinayay, wax carabastiis la ahaa oo faruurta ruugayay wiilkii dhaanraac ahaa. wuxuu diidan yahay sheekadan isaga macnaha u lahayn oo ay odayaasha aan wakhtiga la socon la neefneefsanayaan. si uu isaga aamusiiyo ayuu dhaanraac u shitay makiinadda suxuunta wareejisa. wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii James Brown. odayaashii sheekada u socotay ayaa mar keliya wada aamusay oo yaab isla wada dhugtay. farxaddii odayaasha waxaa beddelay foolkaduud. markaasay il caraysan ku wada fiiriyeen dhaanraac. isaguna dan kama lehe waxaasoo dhan. wuxuu ka cayaarayaa fadhigiisa oo hadba gees isu tuurayaa, jilbahana isku tumayaa. marmar heesaaga ayuuba kula luuqaynayaa baydadka iyo horisyada qaarkood sida jirooba jirooba. markii cabbaar la aamusnaa, wiilkiina uu xiise dhacay ayaa mar kale sheekadii la soo nooleeyey. ugu horrayntii waa suge ayaa isagoo aad uga caraysan waxyaalihii uu dhaanraac ku kacay wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirshay masafadii Sheekh Axmed Gabyo oo ahayd: qasqas carma ah iyo qaabis caamood, midba mar baa la qasmaansadaaye, quud haddii la karsho oo uu qaboobo, intuu qurmaan la soo qubaaye, geenye qurxoon iyo qayl dameeraad, ninba midkiisaa la qaal badane, rati qawaar ah iyo qaalin juuclo ah,
midba marbaa qalab la saaraaye qashkariso iyo naagta qaafa ah meherkaa loo wada qaybiyaaye qaran haddii marba qoon u soo kaco wixii qadiim ah baa la quursadaaye qur-aankaa toosanee qaadir ka yidhi qolofqab gaal uhuu qoonsadaaye rag badan ayaa masaafadaas ka faallooday waa sugana gacan qaaday iyagoo islamarkaana isha ku godaya dhaanraac waa suga markuu ogaaday in tusaalihiisi lala dhacay ayuu si wanaagsan inta fadhiga isku qaab samaystay oo maradiisii tarashka lahayd degaha ka ritay sidii libaax hareerihiisa marba mid u jeestay marka intaasu dhacday ayuu warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar keliya sidii webiga u biyo keenay wuxuu ka qiirooday sidii waa suga loogu madax ruxay warsame isagoo guud ahaan aad uga hadlaya xaalkii dhaanraac gaar ahaanna dantiisu tahay in uu libta abwaannimo ka xigsado waa suge ayuu dadkii u tirshay gabaygii cilmi raage ee ahaa toogaysi buu galay furqaan tahajudkiisii tawreed iyo injiil baa islaam taabacood yahay xaqiyo tamaama xafiis loo tallaabsaday meeshii tembigu ooli jiray buugag baa tubane waxay culimo tawfiiq ku tahay turba naareede tawxiidka waxaa looga tegay liira tacabkeede sida toorka iyo kaashabaa la isku tiimbadaye la talaalanyaysee kufriga loogu tiirsaday dadkii oo gabaygaa ka faalloonaya murtidiisana wadajir u dhuuxaya ayaa dagaal lama filaanihii dhex maray wiilkii dhaanraac ahaa iyo haweenay duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiidayna kursiga kiisa ku xiga dagaalku waxa uu ka dhashay dhaanraac oo xabad sigaara shitay duqdiina ay ku tidhi ha igu afuufin qurunka afkaaga ka socda dhaanraac isagoo inta tabartiisaha dadaalaya ayuu aftalyaani ku yidhi iskusi raalliiga ahaw duqdii waxay u qaadatay inuu wiilka caynayo markaasay intay la baxday dembiishay alaabta ku sidatay madaxa kala dhacday oo u celcelisay ilaa gacmaha la qabto haddaba muxuu falay dhaanraac inta istaagay oo gacmaha shaarka laalaabtay feerna uu la baxay ayuu yidhi duqda iskeen halkaa haynoo joogto maanta qaybtii koowaad ee waa suga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood